أولا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga qaaliga meel walba inta caalamka ka joogtaan waa walaashin umaaliisha oo idinku salaamaysa salaamta muslimka waxaa idin leeyahay walaalahayga qaaliga sida quruxda badan ay la socotaan waa idinkaga mahad celinaya waxaa idin leeyahay jazaakum allahu khayr walaalaha igu cusubna waxaa leeyahay ii soo dhawaada channelku waa channelkeena waa channelka oo walba inta Soomaaliyeed biidnillaahi kariim waxbaa ka faa'iideysaa anna waxbaan ka faa'iidaya insha Allah biidnillaahi kariim ilaahay ha naga dhigo kuwii wax kala faa'iida ilaahay idankiisa ilaahay waxaan ka baryaynaa dalkeena iyo nabad ah dowlad caadil ah dumarka u dooda ilaahay inuu na sii waayo dumarka aad ayay u dayacayeen maalinba maalinka ka dambaysa qisadii kaleento oo shala ah ka naxday kasii xanuun badan ayaa lagu soo qofkuu soo sheeganaya uu ku leeyahay walaal anigana qisadaas ay igu dhacday soo maantayto waxaan rabaa inaan qiso ka leento tiimaaninka dhaweeyta maasha Allah tabaaraka Allah aad ayaa ugu soo duceyseen jazaakumullahu khayr walaalahayga qaaliga ah aad ayaa idinkaga mahad celinaya waayo waxa idinka codsaday sida idinkaga codsaday ayaad iigu fuliseen ilaahay idinkana maalinka qiyaamo ah idin taageero insha Allah biidmillahi kariim soo gabar walaasheen ah ayaa iyadana maantayto qiso ku dhacday ayay ila soo wadaagtay ayadana waxay rabtaa in loo duceeyo insha Allah aan isku duceyno waayo waxa kale intaan isku qaban karna malahana baroor waxa la yiri baroorta orgiga ka weyn bay hooyada ii dhihi jirtay waagan yaraa marka baroorteena orgiyaasha xataa waa ka waaweyntaa dameerahana waa ka weyntaa geelkana waa ka weynaatay soo marka insha Allah biidmillahi kariim ilaahayga qaadir ilaahayga caadilka ah hanoo naxariisto wallahi aad ayay gabdhihii Soomaaliyeed meel walba inta ay joogaan u dhiban yihiin soo abaayadanna waxay igu tiri ayadana aad ayaa waxa dhibaato uga haysataa ninkeedii oo waxay tiri ay u dhashay 3 ilmood oo waxay tiri qurbahaas jooga ayaa waxay tiri aad iskugu dhib qabnaa asagana oo waxay tiri walaashay waxaan tiri aad ayaan ilmahayga iyo aniga ugu dhib qabnaa waxay tiri marmarka qaarkood xataa waxa la isiiyay tiri ayadoo la igu caynayo oo waxay tiri la igu aflagaadeynayo ayaa la isiiyaa waxay tiri meel aan ooga doorsan karana malahan waayo waxay tiri xarig ayaa weli iigu xiran waxay tiri ilmaha aan haystana waa 3 ilmood oo mid uu iga xanuunsan yahay soo waxay tiri wallaahi aad ayaa u dhibanahay walaashay in la ii duceeyo gabdhaha Soomaaliyeed meel walba inta ay joogaan ayaan rabaa marka insha Allah aan isku duceyno walaalayaal wax kale inta aan isku qaban karno malahane mideena dhibaataysan marka inta u tagno aan soo booqano xataa booqashada laftirkeeda aad annakana ajar ayaan ka helaynaa ayadana moraal ayay u tahay markaan istaageerna ayuu rabbina taageeraya soo marka isbooqano oo mideena dhibka qabta aan dhibkeeda lasoo qaybsano oon hadalkeeda kasoo dhageysano oo problemkeeda soo dhuuxno ayaa insha Allah biidmillahi kariim ayadana waxay u noqon doontaa caqabad ayaan ka kor qaadaynaa waayo marka aad hadashid waxaa kaa kordagaya kiilooyin culays ah soo mar walba inta waxaan isku dayeynaa insha Allah biidmillahi kariim walaalahayga qaaliga anna waxaan mar walba inta rabaa inaan channelkayga aan hooyooyinka Soomaaliyeed waayo hooyo ayaan ahay hooyo Soomaaliyeed maanta waa midda meel walba inta ku dhiban soo mar walba inta aniga waxaan jecelahay hooyo Soomaaliyeed in aan channelkayga ku taageero insha Allah biidmillahi kariim waxaan jeclaan doonaa in aan ilaahay idankiisa hooyo walba inta oo Soomaaliyeed haddaan awood u leeyahay meel walba inta ay joogto xataa haddaan waxba u qaban karin xataa inaan dhibkeeda la qaybsado oon hadalkeeda dhageysto oo meesha ay ka tabanaysa ilaahay inuu ka tiiriyo aan u duceeyo oo channelkayga dadka ku xiranaya dadka ummadda Soomaaliyeed aan dhaho walaalayaal oo hooyadaas igu duceeya soo insha Allah biidmillahi kariim hooyo walba inta Soomaaliyeed meesha ay ka tabanaysa rabbi ha ka tiirsho awlaadeena waladur saalix Allah nooga dhiga ayaan leeyahay waayo kulligeen single mother ayay hooyooyinkii Soomaaliyeed maanta u wada bateen oo kaligeed ayaa meel ku daalaa dhacaysa marka aan isku duceyno walaalayaal maxaa la yiri iyo maxaa lagu furo inta iska dayno iyo heblaayo way ka jabtay heblaayo sidaan ay noqotay wallahi bil ninka qeyrkii loo xirayo asna soo qoyso weeye marka midaas walaasha ku dhacday adigana say bari kuugu dhicin walaasha meesha ay ka tabanayso insha Allah biidmillahi kariim in aad ka tiiriso oo problemkeeda iyo dhibkeeda iyo xanuunkeeda aad dhageysato ilaahay kuwa isku naxariisto isku damqada ilaahay naga dhigo oo isku soo duceyno walaalahayga qaaliga ah gabdhaha walaalahay ah oo channelkayga iga soo codsada in loo soo duceeyo biidmillahi kariim waxaa idinka baryayaa inaad u soo duceysaan walaalahayga qaaliga ah hooyo walba inta oo Soomaaliyeed meel walba inta ay joogto dhibka haysta ilaahay inuu ka kor qaado oo daruufteeda biyo lagu shubay
biyo dab lagu shubay ilaahay inuu ka dhigo sorry biyo dab lagu shubay ilaahay inuu ka dhigo ilaahay isku barino walaalahayga qaaliga ah waa walaashin umu aliisha idin dhahaysa jazaakumullahu khayr sida quruxda badanaad ii taageertaan rabbi ha idin taageera maalinta qiyaamo waxaa idin leeyahay walaalahayga qaaliga ah gabadhan waxay tiri waa dhibanahay walaalayaal hala ii soo duceeyo faraj khayr qaba ilaahay inuu furano u soo duceeya annagana waa u ducaynaynaa biidnillahi karim sida quruxda badana mar walba idinkaga codsooda ducooyinka jazaakumullahu khayr idinkana ilaahay ha idinka abaalmariyo maalinka la qaawan yahay oo la qatan yahay rabbi ha idin shafeeco waxaa idin leeyahay walaalahayga qaaliga walaashin umu aliisha idin dhahaysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu